anu waxaan ahay waxa la yiraahdaa Xisbi Muuse Maxamed gudoomiyaha degmada Galsoor baan ahay waxaan ka tacsiyeynaa Hodan Cabdi Jaamac Allah u naxariisto geeridii ku timid oo u geysteen gacanta ka xaq daran ayaan oo tacsiyeenayaa eheliyadii iyo reerkii ay ka baxday waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah in ka siiyo halkaas waxa ka dhacday kubsi wadareed iyo dil ayaa ka dhacay waxaana geystay niman hubeysan oo maleeshiya beeleed ah oo u dhashay beesha Wogordhiceed kana soo baxay deegaanka ka xandhaale dadka shacabkaana si toos ah ugu soo duulay dhiigoodina banaystay si sharci darraa u banaystay Soomaalidu dhaqan ay salahayn oo boqolaalkii sano Soomaaliya ay soo martay aan dhicin ayay sameeyeen lama arag gabar Soomaaliyeed oo ni Soomaaliya dilahayo xabad la dhacayo oo u dilahayo reer hebel baata oo u dilahayo waa waxaan soo marin Soomaaliya kana dhicin hase ahaatee albaabkaas maantay waxaa furay Wogordhac furtay ummadda Soomaaliyeed baa u sheegaynaa meel kastoo ay joogaan in dhacdadaas ay sameeyeen qabiilkii halkaa degan anigu dhammaantiis weeye ma wada oranayo laakiin rag hubeysan oo qabiilkaas u dhashay ay sameeyeen dhibkaasna ay geysteen ayna tahay dhacdo ugub ku ah Soomaaliya gabdhaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan guri kastay joogaan cid kana u disha iyo cid reer hebel u disha Soomaaliya wali kama dhicin asaahata dhacdaas maantay nimankaas baa furay waxaan leeyahay arintaas waxa ay ku jira dad aqli leh aqliga saaxiib ah culumadiin leh waxgarad leh aqoon-yahan leh arintaas oo arin sax ma ahan arin Soomaaliya ka dhacdana ma ahan waxaan leeyahay arintaas wax ka qabta marka anigu arintaas waxaan leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida kilinka shanaad siiba gobolka Doolo maamulkiisu nimankaas waxay joogaan waxay ka soo baxaan deegaamada adinku gacanta aad ku haysaan oo maamushaan kama soo baxaan Galmudug kama soo baxaan Soomaaliya xageeda halkaas ay ka soo baxaan dacdheer iyo ka xandhaale ka yimaadaan dhibaatooyinkaas ay geystaan halkaas ay ku laabtaan waxay noqotay god dhurwa ayagu ay ku gabadaan shaatiga kilinka shanaad ama Etoobiyana ay hoos harsadaan ummadda Soomaaliyeedna ay ku dhibaateeyaan arintaas hadiina adinku raalli ka ahayn waa inaad wax ka qabataan sababta oo ah dad ku gabanaya magaca Etoobiya ama magaca kilinka shanaad haddana doonaya dadka dariska ah oo Soomaaliyeed oo dariska in la ah inay maalmo banta dhibaatada noocaas u geystaan haddana meesha ku laabtaan oo ay yiraahdaan anagu dad muwaadiniin Etoobiyaan ah nahay arin sax ma ahan dhibka deegaanka dhan buu saameynaya xuduudu saameynaya darisnimada ayuu wax u dhimahayaa arintaas waxaan leeyahay waa inaad wax ka qabataan